intiina la socotayba shalay xilli gali dambe ay tahay ayadoo oo dad kula hadlaysa magaalada Minneapolis meel kamida ayaa Congresswoman Ilhan Umar waxa nin intuu u soo dhawaaday uu markaasi ku shubay ama uu ku buufiyay sida la dhihi karo siringo wax uu ku watay oo dareera ah walaxdaasi dareeraha oo ilaa iyo haatan aan la xaqiijinin waxa ay tahay balse ninkan oo naceebka uu ka muuqday ayaa waxa uu fadhiyay safka hore ee goobtaasi dadka boqolka qof ku dhawaadka ah ay Ilhan Umar kula hadlaysay xilliga uu sameynayay in uu ku dhiijiyo waxa uu ku waday siringaha ayaa waxa ay ka hadlaysay Congress Ilhan Umar haweeneyda iyadu Homeland Security haysatay Christine Niam la yiraahdo taas oo ay hoos yimaadaan ciidamada ICE markaasi oo ay sheegaysay in ay tahay in ay shaqada ka tagto oo is casisho ama xilka laga qaado maadaama tacadiye fara badan oo dilal ay kamid yihiin ciidamada ICE ay ka geysanayaan gobolkeeda haddaba waqti saacada ah kadib maxaynu ka naqaanaa ninkaasi adeegsaday sirinjahaasi si uu gabadhaasi ugu waxyeeleeyo waxa aan soo baaray qofka uu yahay halka uu degan yahay dambiyada hore uu u geystay halka uu ka soo jeedo iyo sidoo kale tahaatan oo ay gacanta ku hayaan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis waxa laga yeelay ninkaasi ninkani horta waa 55 sano jir waxaana magaciisa qaybta dambe sida laga dheehan karo uu ka soo jeedaa wadanka Poland waa cadaanka Caucasianka ah isla markaasina waxa uu deganaa cimrigiisa in badan oo kamid ah gobolkaasi Minnesota lama sheegin inuu haysto dhalashada dalkan Mareykanka balse sida ku cad waxyaabo uu soo dhigdhigayay social media gaar ahaana Facebook oo magaca Andy uu ku soo galayay iyo sida la sheegay Twitter-kaba ninkan waxa uu ahaa nin muddo aad u dheer uu ka muuqday naceebka uu u qabo xisbiga dimuqraadiga waxa uu ahaa dadka qaba aragtida midigta fog ee xisbiga Republicaanka ee madaxweyne Donald Trump gaar ahaana kuwooda loogu yeero Make America Great Again ninkan waxa lagu magacaabaa hadaba Anthony Kashmir Jack waxa uu ahaa nin muddo soo post gareynaya ama social media soo dhigay hadallo naceeb ah waxaana la sheegay in uu san jecleen Ilhan Umar waxa la yiri waxa uu deganaa goobta shirka uu ka dhacay meel aan sidaas uga sii fogeen waxa uu dadka dariskiisa haweeney ah uu ku sheegay uu ku yiri aan iraahday ECIA-gayga waxa laga yaabaa in la xiro sida warbaahinta Mareykanku ay warinayso ninkan ayaa waxa Ilhan Umar sirinjahaas uu ku weeraraya ayada oo markii uu soo kacay aad mooday inuu tilaabo dhinac ula dhacay balse waxa xusid mudan in Ilhan oo si geesinimo leh uga jawaabtay weerarkiisa daqiiqado gudihiisa asna ay qabteen dadkii ciidamada ammaanka ah ee halkaas joogay kadibna lagu wareejiyay ciidamada booliiska waxa lagu xiray sida wararka aan helay ee sheegayaan Hennepin police station ku yaala halkaasi oo lagu wareysanayo baaritaanana ay ku socdaan ninkan waxa la sheegay in laba jeer oo horeeto oo xilliye kala gadisana oo 2019 ay kamid tahay in lagu qabtay asaga oo cabsan alcohol ka soo dhargay oo baabuur wado waxa xusud mudan gudaha dalka Mareykanka inay dambiyada kamid tahay in qofka asagoo cabsan uu baabuur wadi karo hadii lagu qabtana uu jeel mudan karo labadaasi jeer ay hore aawadeed waxa uu luusgareeyay shaqadiisa sida wararku ay sheegayaan haatan waxa uu ku noolaa inuu qaato ceerta dawladdu ay bixiso ayada oo mararka qaarkoodna ninkaasi la arkayay asaga oo markaasi shaqooyin badan isku dayaya balse waayay ninkan waxa la sheegay inuu kamid yahay sida warbaahinta gudaha ay sheegayso dadka sida dhow markaasi u necba Ilhan Umar oo markaasi soo post gareyn jiray ama soo dhigi jiray hadallada gefka ah ee ka dhanka ayada social media hadaba halkan sida uu ku yimid iyo sida uu ku soo galay iyo say ugu suurowdayba waa su'aalo la isweydiin karo oo dad fara badan ay isweydiinayaan balse waxa muuqato in siringahaasi aanan lagu baraarugin hub weyn oo watay oo muuqday oo la qaban karna ay soo jireen ninkan si kastaba ha ahaatee waa ay baarayaan ciidamada ammaanka iyo sidoo kale waxyaha qaabilsan dabagalka naceebka uu ka muuqdo qofka noocan oo kale uu geysto kuwaas oo la filayo baaritaanadooda kadib inay hadal soo saari doonaan waxa xusid mudan warar hordhac ah inay sheegayaan ninkaasi in lagu xukumay third degree assault wax la yiraahdo halka aad ka maqan jirteen first degree murder second degree murder third degree murder hadda ninkan waxa lagu xukumay
third degree assault oo macnaheedu uu yahay qofka marka uu qof raba inuu waxyeelo weyn u geysto ama uu isku dayo ama uu u geystayba in lagu qaado dambi noocaasi waxay ka dhigan tahay dambigaasi inuu san ahayn mid macnaha ogaanshiye la'aan laakiin uu ahaa kas iyo maag wixii la dhihi jiray oo qofkan asagoo miirkiisa qabo uu soo diyaar garoobay wax uu soo qaatay meel uu soo fariistay uu soo qorsheeyay xilligan uu la egtay haddaba Ilhaan Cumar ayaa mudaba waxay helaysay hadallo iyadu naceeb ah waxaana jirtay sidoo kaleeto dhowr jeer madaxweyne Donald Trump maadaama bilihii ugu dambeeyay ay si weyn isugu karan yihiin in ay codsanayso inay hesho ciidamo ammaan oo gaar ah waxaana ammaankeeda si ay u sugto ay dadka weydiisanayso gaar ahaan kuwa gobolkeeda laga soo doorto inay siiyaan dhaqaale ay ku qorato ciidamo dheeri ah waxa kale oo jirtay in naceebka uu soo badanayo waayadii ugu dambeysay gaar ahaan xubnaha dimuqraadiga ee ay weerarayaan dadka sida dhow ugu ololeynaya ama uga tirsan aragtida midigta fog ee Republicaanka ee Conservative-ka toddobaadkii hore unbay ahayd markii sidan oo kaleeto nin lagu xiray gobolkaasi Utah halkaasi oo lagu eedeeyay in uu markaasi wakiil ama qof xildhibaan oo sida Ilhaan Cumar oo kaleeta laga soo doorto gobolka Florida la yiraahdo Maxwell Forest uu feer ku weeraray markaasi oo ciidamadu ay qabteen qofkaasina la xukumay ilaa iyo haatan inkastoo warar dheeriyo badan aan laga helin haddana waxay uun ahayd fal naceeb sidaan oo kaleeta dhacdo ah lala xiriiriyay dhammaan arrimahan waxay imaanayaan xilli gobolkaasi Minnesota weli uu la baroor diiqayo dilkii loo geystay wiilkii u soo baxay haweeneyda ciidamada ICE ee qaban lahaayeen ee la oran jiray Alex Berry kaasi oo ilaa iyo haatan goobtii uu ku nafbaxay ee magaalada Minnesota ay kumanaan iyo boqolaal daqiiqad walba isugu yimaadaan iyo madaxda gobolkaasi si markaasi loo muujiyo in uu ahaa nin u soo xeetay banaankana u soo istaagay dadka reer Minnesota inuu difaaco wiilkaasi oo isagu ahaa neeriska ama kalkaaliyaasha caafimaadka ee la shaqeeya ICU-da qaybta isbitaalka gurmadka degdega ah Department of Veteran Affairs ama isbitaalka qaabilsan dadka militariga ee wadankan u soo shaqeeyay arrimihiisa caafimaadka ee la yiraahdo Minnesota VA waxaa jirta in saakadan ugu dambeysay waaridkiis ay booqdeen goobtii wiilkooda uu ku nafbaxay waxaa la taagnaa oo soo qoray waxaan u xaqiijiyay waalidkan in wiilkooda uu ahaa nin qalbi fiican aan ka go'i doono qulubta dadka reer Minnesota isla markaasina aan ku xasuusnaan doono sidii hiirownimada uu dadka ugu soo baxay Tim Walz oo garanaysan oo ah governorka gobolkaasi Minnesota waxa kale oo xusid mudan daawadayaal oo rabaa inaan idinka dabageeyo iyadana isla maantana dhacday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kaleeto mayorka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa isku qaadqaaday maanta mar kaleeto Jacob Frey ayaa si toos ah wuxuu u sheegay in aysan ciidamada ammaanka ee gobolkiisa ama magaaladiisa aysan la shaqeynaynin kuwa immigrationka ka wada halkaasi howlgaladooda ama howlgaladan looga soo horjeedo immigrationka iyo dadka immigrantska ay se kaalmeeyeen waxaan ula jeedaa immigrationka hay'adda socdaalka immigrantskana waxa loola jeedaa dadka wadankan iska dhiibay aan u dhalanin ama yimaaday ama sharciyada aanan haysan sidaas la aligeed waxa uu sheegay in ciidamadoodu aysan la shaqeynaynin ICE mar kaleeto hase yeeshee isla markiiba waxa uu soo jawaabay xagga xiriirka bulshada wararka cuslaa ay isweydaarsan jireen madaxweyne Donald Trump oo sheegay in uu dab ku ciyaarayo Jacob Frey arrimahan waxay imaanayaan xilli haddaba sida aan horeba u sheegay Minnesota weli ay la circiirayso ciidamada 3,000 ku dhow ee jooga halkaasi ayada oo dhinaca kaleetana xaaladii adkeed markay dhacday kadib maamulka Trump ay bedeleen ninkii commanderka u ahaa ama taliyaha ciidamada u ahaa ciidamada ICE ee halkaasi jooga ee border patrol-kana qayb ahaan asaga ay shalay raacday oo magaaladaasi uu ka soo baxay ayadoo ninkii uu u dirayna oo la yiraahdo Thomas Homan isla markaasina kamid ah saraakiisha sarsareeto ee xagga immigrationka oo halkaas uu u xil saartay Trumpna maantaba durbaba uu la hadlay xubnaha maamulka degmo Minneapolis iyo sidoo kale kuwa kale ee Minnesota oo Tim Walz uu kamid yahay kuwaas oo dhamaantoodba uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii xiisadan loo damin lahaa isla markaasina xal rasmi ah loo gaari lahaa si wax looga qabto mushkiladaha ka taagan gobolkaasi Minnesota daawadayaal haddaba
ma dhamaystirayab daawadayaal haddaba wararka la xiriira Minnesota iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka iyo wixii ku soo kordhaba baaritaanada socda arrimahan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda oo kala socon doontaan Somali Coverage TV qaybaheeda kala gedisan hadii ay noqoto dhinaca YouTube-ka oo aan idinku dhiirigelinay in aad asaga badi raacdaan maadaama wararka ugu badan aan soo dhigo dhinaca Facebook-ga iyo qaybaha kale ee social media si aad ula socotaan warar xaqiiqo ah dheelitiran hufan oo laga soo shaqeeyay inta ka horeysa waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabad galiyo